شرفك كسوق الشركة طبقارياشا الليرة وضياشا ويهنك بحر حق صحافة هي انت كما نقول انا الشيبة لما انت وحد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddaan soo koobo nin codkar ah oo hadalka dhihi yaqaan hadduu kaa horeeyo wixii adoona lahay waa artaa xaarufinaya runtii nin codkara oo waxa jiro dhan soo koobay ee iga horreeyey hase ahaatee aniguna waxaygaan la imaanaya haddii aan yidhaahdo waxaa kuwii fanaaniinta Soomaaliya waa beri yaa markii majaajilooyinka samaynahayaan ee ku jidhay waagan dhalinyarada ayna afiigsan jirnay mid baa loo yeerahayaa marka hadal uusan asagu markaas oran karin yaa waxaa la raba hordhaha leeyahay wuxuu leeyahay hadalkanaa laygu soo riixay haddii laygu soo riixayna anaa ninka laygu soo riixay intaas oo iska kaftan haddaan dhaafo arrinta tan caawa xafladdan qiimaha badan loo yimid waxaa weeye waa sidaas muqsal sheegay ujeedkeedu waxaa weeye taageerada beesha Tanade go-aanka ay qaadatay oo 2 bilood iyo barna garowga ka soo socday shirkaas 2 bilood iyo barna gaar ayaa ka socday go-aankiisii taageeradii ay qaadatay beertu ayaan taageeraynaa ayadaan ku go-annahay go-aanka iyaguna annaga caawa halka uu kaas weyn walaalayaal Puntland waxaa wada dhistay beero isu tegay beero Soomaaliyeed oo isu tegay yaa dhistay iyadoo dowladda waddanka ka jiray waxaa loo dhistay in iyaguna ku kala nabad galaan ummaddana ay uga nabad galaan dhismihii Puntland waxaa kaalinta koowaad kaga jiray ismada Puntland baa kaalinta koowaad kaga jiray hay-adda ugu sarreysa Puntland ayay ismada arrinta tan waxay ka bilaabantay tabashadeedu iyo dulmigeedu 19 sano ka bacdi oo intaas kadib beeshaas dul qaadanaysay waxay ka bilaabantay ismada Puntland in gobol loo dhigo 30 isim oo Puntland ayaa gobol la soo keenay 2 bilood iyo barku socday oo ay socotay arrintaasu ismadaas 37 oo Puntland oo nin beeshaan ugu soo jirin waxay isku raaceen oo wada saxiixeen in beesha Tanade ku dulmay iyo aqoonsadeen oo saxiix ka bacdina markii ay shireen waxay soo saareen go-aan waxa beeshaas looga saari karo dulmiga looga saari karaa ay soo saareen ayaan daro waxaa go-aankii cagta saaray wiilaliya baa cagta saaray go-aanka ismadii sharafta lahaa oo arrintaas soo saaray haddii wiilashooda cagta saareen annagu waxaan isnay kuna iyaga ka daba tegay in ayaa go-aanka leh waxa ay ismada wiilashu cagta u saareen waxaa waajibkeeda marinaya oo wiilasha odayaasha ma ay dhicin ismadiina waa aamusay beeshii markay ka warsugtay oo ay arrintaas ay aragtay inaan cid u soo socon ayay go-aankan qaatay go-aankaana waa xaqiiqo weeye haddii meel uu ku dulmo haddii waddu qaadan karin intaas ka badan arrintaas inaysan fudayd ku dhicin oo laga fiirsaday
فأنت تزيد كل شيء وحاول هي ولا ريال عدالته وأعتقد في القرآن وحاول عدالته ومده وقلنا وربوض النور على وجهه هدي عدالة ويايو ولا نوراش مت واحد عدالة بدلها هي هو ظلمي هو واحد وما ضحنا لو كأنت سجنا أيام قلت له وأنا كنت ظلمي سجاري يتوصل أنا بدل يقبل قادريني وأنا يوم واحد ويا إن كرسولي كهوا عني ما دام ويني ظلمي قاس وحنا وقتنا أنت أسمع صوت جبينها هي إقرار لها هذا أدي أدرى من سنتين